Taliska booliiska guud ee qaybta Galmudug ayaa ka warbixiyay howlgallada ciidamada booliisku ay ka wadaan magaalada Dhuusamareeb iyo sugidda amniga maalmihii la soo dhaafay halkaasi laga sameynayay iyadoona uu soconayo shirka wadatashiga madaxda dowlad goboleedyada kaas oo maalintii shalay ahayd ka furmay magaalada Dhuusamareeb. Taliyaha qaybta guud ee booliiska Galmudug Generaal Bishaar Abshir Geedi ayaa ka warbixiyay howlgallada iyo sugidda amniga magaalada Dhuusamareeb ciidamadu ay ka wadaan waxa uuna xusay in mas'uuliyad gaar ah ay ka saaran tahay xaqiijinta amniga magaalada Dhuusamareeb. Waxaan bilownay maadaama halkan uu ka bilowday shir weyn oo wadatashi madaxda maamul goboleedyada ugu sareeya ee dalka ka jira ay isugu yimaadeen caasimadda maamul goboleedka Galmudug ee magaalada Dhuusamareeb. Runtii waxaan u istaagnay in amniga caasimadda iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee meesha isugu timid amnigeeda aan sugno. Ciidanka amniga guud ahaan ciidamada qalabka sida noocyadiisa kala duwan. Dhinaca kale, taliyaha ayaa bulshada ugu baaqay in ciidamada amniga sugaya ay la shaqeeyaan waxa uuna uga mahad celiyay dulqaadka ay sameeyeen intii howlgallada sugidda amniga laga waday magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug. Waxaan ka codsanaynaa oo idin soo jeedinaynaa guud ahaantiin inaad ciidanka booliiska iyo ciidamada amniga aad la shaqaysaan. Sidoo kale waxaan ka codsanaynaa inaad samirtaan oo dulqaadataan maadaama ummadii Soomaaliyeed oo dhan ay marti u tahay magaalada Dhuusamareeb oo caasimadii maamul goboleedka Galmudug ah. Inaad aqbashaan wax kasta oo culays oo aad dareentaan, inaad soo dhaweysaan dadka martida idin ah, inaad karaamaysaan, inaad sharaftaan, inaad dulqaadataan, inaad wax kasta oo culays oo ku dhaca dabarka u ridataan, inaad ciidamada amniga guud ahaan la shaqaysaan iyo maamulka degmada iyo duqa caasimadda guud ahaanba. Magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug ayaa waxa ay marti gelinaysaa shirka wadatashiga madaxda dowlad goboleedyada kaas oo maalintii labaad galay. Maxamed Cabdi Maxamed, warbaahinta qaranka, Dhuusamareeb.